وري عبد الله عبد علي وورك النوغة صدري مقالة نيروبي. سفير جمهورية الصوماليلاند وفدي وطنك كينيا محمود جامع صفر هي كور بحي سعودال كي مدحوينها جمهورية الصوماليلاند أحمد محمود سيرانيو وكسو مري وطنك كينيا يسوغو سي جيدا وطنكاسي بريتن سمركاسينا مددي كوبنيد او جوغي مقالة نيروبي لاميه كلا دونا اي لكل مين كميدا خاين سفير وطنك مريكنك وفدي وطنك كينيا يو بنكيغا أدونك لو يغانا والبانكا طبعا وقرنتي محمود جامع صفر isagoo ka warbixinaya socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo oo ku soo maray magaalada Nairobi iyo muddadii uu ku sugnaaba waxa uu yiri sida tan safarka madaxweynuhu ee halku soo maray wuxuu la xiriiraa warkii dawladda Ingiriisku soo saartay ee ay dadkeeda uga digtay khatarta Soomaaliland iyo Soomaaliya kaga wajahan oo markii ugu horeysay ee Soomaaliland ku soo dareen oo ay yiraahdeen dad yaan la teegin oo markaa taasoo saameyn ku yeelatay nabadii iyo deganaanshihii iyo sumcaddii Somaliland markaa dabeetana safarku wuxuu ahaa wada tashi iyo iskaashi iyo xog waraysi heer sare ah laga wada hadlayo dawladda Somaliland iyo dawladda Soomaaliya markaa dabcan waa iminku buutay wax hawshan xagaasay ka bilaabmaysaa laakiinse tagista degdega iyo ogolaashaha dawladda Ingiriiska ogolaatay wada tashiga waxay ka tarjumaysaa labada dawladoodba inay danaynta sida weyn ay u danaynayaan xiriirkooda iyo deganaanshaha mantaqada geesta kalena maxamuud jaamac sifir isagoo ka warbixinaya safiirka wadanka Mareykanka u fadhiya wadanka Kenya markii ay kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo waxyaabihii ay yiraahdeen isla markaasina waxyaabihii uga qabsoomay hadalkooda isagoo markaasi safiirku uu ku weelinayay socdaalkaasi waxa uu ka yiri sida tan markii loo gaaray madaxweynuhu halka yimid waxa uu ugu horeeyay safaaradda Mareykanka safiirka Mareykanka يا إذا صاحي لي وضل بدأ إنه مدحوينها فرصة سيء وكركلمو مركز التنا مدحوينها وزير فدي يتيم كدنكو السفير كمريكان كحجينا دي سراكيش دي سكراء دي كو السياسة دا كو دقالها كو أمنية وحصلنا الصغوطة يويمي التنا بلعبي وذا حضر مركز هدان إديتها تابطو سفيرك مريكانku waxyaabo daneenay waa la socotaan dawladda Mareykanku aragtibay ka leedahay aag deegaanka iyo ujeedooyin ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada budhcadbadeedka iyo loo arko in iyo deganaanshaha mantaqada guud ahaanba oo ay ka mid tahay Somaliland iyo Soomaaliya iyo mantaqadaba oo argagixisada iyo budhcadbadeedda labaduba saameeyaan laakiin waxa sii saameeya siyaasadda Somaliland iyo Soomaaliya siday u arkaan marka waa la socotaan oo dawladda Mareykanku waxay aqoonsatay bari dhaweyto tigisi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh safiirku wuxuu noo xoojiyay inay kala hadleen madaxweynaha inay una sheegeen inaan aqoonsigaas mid wax ka bedelaya siday ula dhaqmi jireen Somaliland inaan ahayn gabagabadiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo iyo wafdigii ballaadhnaa oo uu hogaaminayay ay dhammaantoodba u anbabaxeen wadankaasi Britain Ilaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nairobi hanti dowlaha guud ee qaranka Soomaaliland ayaa xog waran ka siiyay golaha wakiilada xisaab xilka miisaaniyad sanadeedkii